بسم الله soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay cryptocurrency marka halkan waxaa inoo yaala overview of crypto lixda mowduuc ayaan maaragtay maanta isdul istaagi doonaa step by step baan u eegi doonaa marka kenya waa muxuu waa introduction of cryptocurrency kenya labaad waxaa weeye crypto exchanges marka introductionka waxaan ka hadli doonaa cryptocurrency horta maxay tahay maxaa terminology-ga ama kelmadaha inta badan loo isticmaalo kelmadaha lagu isticmaalo in marka la joogo cryptocurrency qaar ka mid a dhammaan ma hoos wada qaadan karna laakiin qaar ka mid a kuwa ugu caansan the most common ways in cryptocurrency sidoo kale waxaan dabiqi doonaa crypto exchanges yacni exchange-yada cryptoda lagu isticmaalo kuwa ugu caansan kuwa ugu saysan kuwa ugu badan dadku ay isticmaalaan sidoo kale waxaan ka hadli doonaa cryptocurrency and security ammaanka yani iyo weliba security-ga cryptocurrency walletka iyo exchange-ga iyo weliba halka aad maaragtay aad wax dhigan karto security-ga kuwaad ku xidhan karto so aad maaragtay u ilaashan karto lacagahaagaas qodobkiina afraad waxaan kaga hadli doonaa cryptocurrency and uses cases caseska ugu badan ee cryptocurrency loo isticmaalo waqtiga la joogo qodobka shanaadna waxaan ku sharxi doonaa how it works sida uu shaqeyso cryptocurrency-gu sida uu shaqeyso yani systemka ay ku dhisan tahay ama ay ku biskaraysan tahay ay u shaqeynayso kiin u dambeeya wuxuu noqon doonaa keep up to date and advanced strategies inaynu maaragtay la soconno ama la socodka yani cryptocurrencies-ka update-ka u dambeeyay sida ula socon karto waayo bahashani waa highly volatile marka qofku waxa muhiim ah inuu maalin walba saacad ula socdo waxa isbedel dhacaya waxa laga yaabaa hal maalin in maaragtay coin ama yani exchange wax ku dhacaan ama wax soo gaaraan ama mataqaanaa loo guur ama wax saas oo kale marka waxa muhiim ah inaad ka warhayso maalin walba update-ka u dambeeya la socoto marka waan isla eegi doonaa qodobkii marka wax weeye introduction of to cryptocurrency weeye cryptocurrency horta maxay tahay cryptocurrency maxay tahay cryptocurrency waxa weeye waa lacag digital ah ama virtual ah oo inta badan la isticmaalo waxaa lagu isticmaalaa crypto for the security yani amnihan loo isticmaalo crypto garaf loo isticmaalo markaas waa lacag digital ah oo maaragtay aan la isku diro oo qaabkaas u shaqeynaysa maahan lacag yani sidan lacagta fiatka loo yaqaana gacanta ku hayna maahan waa lacag hawe ah oo qaabka digital ah oo wax loo kala iibsado weeye decentralized mining is not controlled by the central authority like the bank or government ma ahan lacag ay maamulayaan bangiyo ama dowlad u gaara hadda waxaa aragtaan lacagihii inta badan yaa maamula dowlad ama bangiga maamula iyagana jaangooya qiimaha hoos u dhacaya kor u kaca iyo mar walba qaabka loo isticmaalo iyagaa maamula marka waxa weeye waa dad yani u dhexeeya dadka isticmaalaya iyo waxa iyada midda dadka u dhexeeya weeye marka tani ma lahan waa decentralized waxa wax ka baxsan yani qof shakhsi ama cid gaara oo leh ayaa loo yaqaanaa decentralized marka waa decentralized inta badan waxay ku base garaysan tahay ama ay ku tiirsan tahay the blockchain waxa loo yaqaano blockchain technology which is distributed ledger yani waa buug inta badan qaybiya ama lagu kaydiyo transactions ka dhaca cryptocurrency transactions waxa weeye wax iibsiga kala iibsiga iyo tradingka iyo waxaas oo dhanba ayaa loo yaqaanaa ama deposit ha noqoto ama withdraw ha noqoto waxaas oo dhan loo yaqaanaa maxay transaction marka waa meesha lagu kaydiya loo yaqaanaa blockchain way haddaba key terminology ama ereyada ugu badan ee la isticmaalo qaar ka mid a soo qaadan doona ma wada sharixi karno laakiin qaar ka mid a bitcoin baan ugu horreysiinaynaa oo ah dee hooyada iyo aabaha maaragtay cryptocurrency waana midii ugu horreysay ee lasoo saaro waana midda ugu weyn marka waxaa loo yaqaan the first and the most popular cryptocurrency waa midii ugu horreysay uguna caansan weeye marka bitcoin waa taa bitcoin waxa ka soo hadho dhan maxaa loo yaqaanaa waxa loo yaqaanaa altcoins waa loo yaqaanaa altcoins hadaad maqasho waa any cryptocurrency rather than the bitcoin waa mid aan bitcoin ahayn laakiin la xiriira cryptocurrency oo dhan cryptocurrency waa gaar beel gaar weeye wixii ka soo hadho dhan waxaa loo yaqaanaa altcoins sida iminka ethereum solana xrp dogecoin dhammaantii waxa aad taqaana markaa cryptocurrency ku saabsan aan ahayn maxay bitcoin aan ahayn baa loo yaqaanaa altcoins marka mararka qaar waxaad maqashay iyadoo laleeyahay waa seasonkii altcoin wax noocaas marka waa tan weeye altcoinska laga hadlaya waa waxaan bitcoin ahayn blockchain sidoo kale waa decentralized digital ledger where all transactions are recorded waa meesha lagu kaydiyo dhammaan xogta ama transactionska ama iibka
ka dhex dhaca dhammaan maaragtay cryptocurrency. Blockchain baa loo yaqaana marka. Blockchain waa meesha xogta lagu kaydiyo weeye, xogta lagu hayo waxaas dhacaya, isbedel oo dhacaya baa loo yaqaanaa blockchain. sidoo kale decentralized finance waa lacagaha ka baxsan qofku inuu isagu maamulo inta badan ama meel gaar ah maamusho. waana maxay waa midda aan yani do not rely on traditional financial institutions. waa sida lacagin caadiga aan ahayn baa loo yaqaan decentralized finance. waa midaas ka baxsan ee cid gaar ah aan maamulayn. walletna sidoo kale maxaa loo yaqaanaa waa tool for storing, sending and receiving. waa wallet waa sida boorsada caadiga weeye ama shandada lacagta lagu qaato. waa kaas weeye walletku. markaas kaas oo digital ah waa la isticmaalaa, marna isagoo oo maaragtay caadiga oo hard ayaa la isticmaalaa. marka kaas ayaa loo yaqaanaa wallet. walletna waa jeebada ama boorsada yar ee lacagta lagu gurto weeye. waxaa is leegi doonaa marka labadan eri maxaa u dhexeeya. inta badan waxaad aragteen cryptocurrency markaad ku jirtaan waxaad arki doontaa waxaas waa Polish, saas waa Polish, Pirish iyo Polish baa loo kala yaqaanaa marka difference between Polish and Pirish macnahan maxay ku kala duwan yihiin. Bullish refers to market sentiment where prices are expected to rise. Bullish waxaa loo yaqaanaa marka qiimaha suuqu la filayo inuu kor inuu kaco. When someone is Polish on a cryptocurrency, it means they believe the price will increase in the future. qof marka la leeyahay yani qofkaas waa Polish marka la leeyahay ama waa bullish on cryptocurrency marka waa qof filaya inuu suuqani kici doono kor u kici doono mustaqbalka dhow. Tusaale ahaan if a person thinks Bitcoin is a price will go up, hadduu qof u malaynayo ama uu filanayo Bitcoin inay kor u kici doonto, waxaa loo yaqaana qofkaas they will say I am Polish on Bitcoin, yani Bitcoin baa i kacaysa ama filaya inay kacdo. Pirishna waa taalidkayga weeye. qof marka qiimaha suuqa hoos u dhaco uu daadanayo la filayo inuu hoos u dhaco waa market sentiment where price are expected to fall inuu hoos u dhacaan. If someone is a Pirish on a cryptocurrency macnaheedu waxa weeye inuu qiimahaasi hoos u dhaco doona. marka Polish iyo Pirish waa labo yani iska soo horjeeda, suuqa hoos u dhaca iyo kor u kaca suuqa weeye. marka intaasaan ku dhaafaynaa taasna way. qodobkina labaad waxa weeye cryptocurrency exchange. waa exchange-yada cryptocurrency-ga. horta cryptocurrency exchange-ga are platform waa madallo where users dadka isticmaalaya can buy wax ku iibsan karaan, and sell kuna iibin karaan, and trade ku ganacsan karaan, and hold cryptocurrency kuna haysan karaan cryptocurrency. madashaas loo yaqaanaa exchange-gu waa kaas. wallet-ka iyo exchange waa kala duwan taa waana ogsoonaas. wallet-ku meel lacag lagu kaydso lagu ururiyo laakiin waxba laguma iibsado waxbana laguma way. haddaba difference-ga u dhexeeya centralized iyo decentralized exchange mana isleegaynaa sidoo kale iyadna. halkan waan soo baranay exchange-gu wuxuu yahay, halkan waynu sheegnay exchange-gu wuxuu yahay. halkan markaan waxaan isleegi doonaa farqa u dhexeeya labadooda centralized exchange iyo decentralized exchange. marka centralized exchange-gu waa maxay? waa mid fududeeya in wax lagu iibiyo laguna gato lagu trade gareeyo cryptocurrency iyada oo ay jiraan dad intermediaries between the buyers and sellers. halkan waxa lagu leeyahay centralized-ka inta badan waa goob wax lagu iibiyo ama sand exchange ka sheegna wax lagu gado karo, waxaan lagu trade gareyn karo halkaas oo ay laakiin dhexdhexaadinayaan dad yani actors ah ay meesha joogaan, intermediaries yani dad dhexdhexaadinaya oo u dhexeeya qaybsanaya iyo laga yimid u dhexeeya jira oo maamulaya maamulkeedana iskale. tusaale ahaan imika haddaan sida Coinbase, Binance, Kraken waxyaabahaas oo kale ka mid ah. marka kuwaas oo kale tusaale sida bangiga oo kale weeye. bangiga hadda dad baa bangiga iskale, qof baa iskale ama hay'ad baa iskale ama shirkad baa iskale ama dowlad baa iskale. marka dowladdaasi waxa u dhexeeyaan qofka waxaan lacagta iibsanaya iyo qofka laga iibinayo labadooda dhexeeya. marka kaas loo yaqaanaa centralized exchange. centralized waxa loo tilmaamay in high risk yahay marka loo eego decentralized exchange way. decentralized exchange inta badan saroon waa mid intaaba lagu sameeyo laakiin aysan jirin cid maaragtay without rely on third party to facilitate transactions. qof ku dhex jira ma jiro oo macna u dhexeeya qofka iibsanaya iyo qofka laga iibinayo cid u dhexeysa ma jiro. marka kan inta badan waa ka fudud yahay laakiin waa ka ballaaran yahay, aqoon dheeraadana uu u baahan yahay, laakiin waa ka less risk yar yahay yani waa ka risk yar yahay inta badan. marka example salahan sa Uniswap waxa kamid ah PancakeSwap ya kamid ah iyo SushiSwap kuwaas ka mid ah. marka waa decentralized exchanges marka way. marka labadoodu maalmihiin waxa weeye
mid cid gaar ah maamulayso oo ay u dhaxayso qofka iibsanaya iyo ka iibinaya, iyo mid aan maaragtay u dhaxaynin qof aan maaragtay gaar ah oo u dhaxeeya uusan jirin ka iibsanaya iyo ka laga iibinayo. Intaasunba maaragtay ugu muhiimsan inaad kala fahantaan decentralized exchange iyo centralized exchange. ciwaankiina saddexaad waxa weeye cryptocurrency and security-ga. Amniga markaan ka hadlayno waa aad iyo aad muhiim u yahay. Marka foreign scams inaad ka hortagto scamska waxyaabaha beware of phishing scams and Ponzi schemes and fake exchanges. waxa la fish wax la yaqaan scamska waxa weeye waa nooca yacni scamska ama maaragtay lagu sameynayo tusaale wax lagu soo dirayo iminka email ba lagu soo diri karaa, wax lagu diri karaa ama link ba lagu soo dirayo URL ba lagu soo dirayaa, waxyaabo qaar ba lagu soo dirayaa ama message ba lagu soo dirayaa si aad click u siiso kabacdina markaasaa lagaaga maaragtay markaasaa markaa lagu sameynaya attack weerar caadi lagu sameynaya. kaasaa loo yaqaanaa phishing scams. Ponzi schemes waxaa loo yaqaanaa oo waxyaabaha maaragtay qofka inta marka hore la yidhahdo waxbaan kuu sameynaynaa na maalgasho dibna inta horeysa lacag yar fiican baa la siiya. Tusaalaan iminka qofka wax la odhan waxaasaan ku siinaynaa dibna si loo dhiso marka hore trustigiisa aaminaadiisa si loo dhiso baa marka hore lacag yar lagu siinaya. Tusaale wax la odhan waxaas bixi waxaasaan ku siinaynaa wixii baa lagu siinaya dibna allah aniga waabay soo celiyeen oo lacag bay wadaane haddana intii ka badan baa lagu din doonaa. marka hore wax la odhan doonaa tusaale ahaan $100 bixi ama wax ka yar $50 dibna kontonkii baa wax lagu soo raacin $100 kale waxa la $100 bixi si aad u hesho $300 baa lagu odhanaya. dibna waxaad leedahay waa tan oo $100 baa lagu siiyey waxbaa lagu daray marka horeba hadda way kugu dari doonaane 150 ka bixi ama 300 bixi wixii lagu weydiiyey si aad u hesho 600 bay ku odhanaya. taasaa markaa la yaqaana Ponzi schemes la yaqaana iyo fake exchange aan de ahayn midka la yaqaano maaragtay caanka ama da saxdaan ahayn. marka kuwaasoo la yaqaana scam way marka mar walba waa inaad yani check garayso double check websites URLs and emails sourceska waxyaabaha emailada URLada lagu soo dirayo mar walba waa inaad maaragtay la socoto oo check garayso URLska. Securing your wallet-ka lacagta ku shubnayso idna sidoo kale waa inaad ilaashato ood ku xidho wax loo yaqaano two factor authentication aad ku xidhato labadaba exchange iyo wallet-ka labadoodaba inaad ku xidhato weeye. marka taasna waa taa considering your hardware wallets for large amount of cryptocurrency. inta badan marka la joogo cryptocurrency lacag badan markaad ku shubato ama lacag badan kugu jirto waxa muhiim ah inaad ma aragtay aad samayso hardware wallet midka adag sida Trezor loo yaqaano meelaha soo dhigi doona ayaa muhiim ah inaad maaragtay moment hardware oo sida aad haysan karto gacanta ku haysan karto weeye kaas inaad isticmaashaa muhiim weeye. haddaba understanding the risk khataraha inaad fahanto cryptocurrency price are highly volatile yani marka khatarta ka iman karta cryptocurrency waana taqaano maxaa khatarka ka iman kara khatarta ka iman kara marka wax noqon karaa in lacagtaada weydo inaad lumiso in laga maaragtay jabsado wax noocaas. marka only invest baa lagu yidhi what you are willing to lose waxa aad diyaar u tahay inaad lumiso ama lacagta tahay inaad waayi karto ka maarmi karto oon ku maalgasho lacag aad u baahan tahay marna ha iskaga maalgelin waxaad ka maarmi karto gasho. Diversity of your portfolio to manage the risk. soo kale waa inaad portfolio-haaga kala weeciso portfolio wax loo yaqaana dee 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 5 6 coin markaad iibsato waa in intaasi portfolio lasku odhanaya portfolio ka waan dhisto marka waan dhowr coins iibsato maaha inta wax waa lacagta haysata inaad geliso hal coin ma soo in XRP inaad geliso inaad Bitcoin geliso inaad Ethereum geliso hal meel inaad geliso ma waayo midani hoos loo dhici karta kor loo kici karta khatarteeda si aad u dhinto waa dhowr kan kala geliso coin waan kala geliso marka taas oo la yaqaan diversity of your portfolio to manage your risk way. Cryptocurrency and use caseska inta badan waxaa laga wadaa maxaa loo isticmaalaa inta badan maxaa digital paymentska in lacagaha lagu bixiyo iminka wadamada qaar baa caadi iska isticmaalsa lacag caadi u isticmaalo oo ku kala wareejista agabka iyo qalabka iyo adeegga iyo waxay doonayaan. halkan waxa lagu leeyahay cryptocurrency like Bitcoin are used as the medium of the exchange for goods and services. adeegyada iyo waliba maaragtay maacuunta wixii la rabo baa lagu kala bedeshaa oo lagu iibsadaa. Some companies and merchants accept cryptocurrencies as a payment. dadka qaar baa wax ku kala ganacsada oo caadi u iibsada iminka wadamada qaar Mareykan El Salvador wadamo badan baa hata waxa laga maaragtay laga isticmaalaa inay noqoto lacag caadi oo lagu kala iibsan karo gawaari waad ku iibsan kartaa mobile waad ku iibsan kartaa cunto waad ku iibsan kartaa cryptocurrency-ga hata Bitcoin baa ugu caansan marka mid ugu caansan oo taas marka kiiska noocaas oo la isticmaali karaa. qodobkina shan wuxuu noqday marka how it works how shaqeysa cryptocurrency. cryptocurrency waxaan isla ognahay in ay digital currency
that operates on blockchain technology mid ka hawlgasha blockchain-kaas marka cryptocurrency operates on a decentralized network waa blockchain-ka baa lasoo sharaxaya markaasoo no single entity qof maamulaya aysan jirin sida bangiyada oo kale ma jiraan wax maamulaya horta halkaas ka falgasha marka blockchain-ku transactions are recorded blockchain-ka waa meesha lagu kaydiyo xogta yani transactionska iibkii waxyaabaha dhacayo dhan baa halka lagu kaydiyaa kaasoo la yaqaana blockchain marka blockchain-ku waa mid ka decentralized ka weeye marka waa kombiyuutarro loogu talagalay inay qaabka u shaqeeyaan weeye marka koowaad waxaad marka daba creating cryptocurrency wallet horta waanad meel lacagtii kugu jirto waanad haysato oo maarata waxna ku bedelan karto waxna ku iibsan karto waxna iska iibin karto marka taas la yaqaano wallet creating a cryptocurrency wallet korta samayso walletkaaga wuxuu noqon karaa mid yani software mid hardware marka waxa jira wax loo yaqaan public key iyo private key baa iyadoo kala jira marka private key iyo public key horta waa mid ka sida bangiga account numberkaaga oo kale account numberkaaga bangiga inta ka qarimayst balse passwordkiisa cilbad ka qarnaysa labadan bay kala duwan yihiin public key iyo private key meeshaas ma kala duwan numberkaaga oo qof la wadaagto si lacagta loogu soo diro waa caadi laakiin passwordkiisa cidna la wadaagi maysa labadana waa saasoon marka lagu leeyahay public key iyo private key way b wax lagu leeyahay marka sending your receiving cryptocurrencies inaad waxna hesho waxna dirto cryptocurrencies yani taasna waa xaweeye waa qorshaha labaad marka way ko marka hore waxa lagu rasaa wallet marka labaadna waa waxna dirto waxna ku soo gaara marka ama dir un bad noqon ama kilo soo dir un bad noqonaysa c transaction verification isbedelkii dhacaya ama lacagihii maaragtay la diriyay ama la soo diriyay ama helaysay transactionkii dad baa maaragtay marka cid baa ku sameynaysa verification markaas waa mashiino miners iyo validators loo yaqaano marka transaction verification once transaction is initiated markuu bilaabmo it is a broadcasted cryptocurrency network sida kombiyuutarada iyo waxaasa validate garaya transaction to ensure the sender has efficient funds qofka diraya horta lacagtii inuu haysto transactions not double spending marka halka hore waxa lagu leeyahay the sender has sufficient hadana lacag kugu filan aanad haysan wax noqonaysa marka inaanad diri karin marka kombiyuutarada qaab kale oo shaqeynaya oo verification ka sameynaya mining iyo validate iyaga sameynaya marka mining iyo validate waxa sameynaya kombiyuutarada sameynaya marka kombiyuutaradaas marka iyagu xalinaya mathematical problems iyo xalinayaan samtaan oo qoonsadaan lacagaha la diray inay sax yihiin qof loo diray in qofkii yahay networkiisa lacagtuna ku filan tahay ka gaariyo numberkii yahay waxaas oo dhanba marka wax noqonaysa adding to the blockchain-ka marka lagu daraya adding to the blockchain verified transaction are grouped into the block yani marka lacagihii iyo waxyaabihii martaqaana marka la isku keeno ee la aqoonsado transactions are grouped into the block ba laga dhigaya marka block wax lagu daray marka blockchain-ka marka waa meel yani ni sheegayay ahayd meesha xogta lagu kaydinayo marka block ba laga dhigaya marka lacagta halka marka tagto wax soo noqoshaa male ama ka noqoshaa male waa sababta loo yiraahdo network-gaaga iyo lacag marka dirayso taran ee macnaha transaction ka sameynayso iska hubi marka the block is added to the blockchain and the sequential immutable maana qaab yani isku xiga oo soo noqosho lahayn ayaa marka la isku xidhaya marka the blockchain serves as a public ledger ensuring the transparency and security blockchain-ku waa qaab noocaas u shaqeynaya waa qaab mataqaana soo hubinaya transparency-ga saxnaanta iyo waliba amniga lacagtaasi ayuu maanta maqadan ilaalinaya way confirmation of transactionadii ina dhacaan yani waa la xaqiijinaya once block is added marka block lagu daro transaction is considered the confirmed waa la aqbalay waana sax saas lacagta kusoo gaartay marka waxaan oo dhan kombiyuutarada sameynaya ma wax qof binaan sameynaya ma waa qaabka lacagta u shaqeynayso ee qofka diraya iyo ka gaadhiso iyo ka dhibaso gareynaya waxaas oo dhan waxa ka shaqeynaya kombiyuutar waaweyn oo loogu talagalay baa ka shaqeynaya miners iyo validators loo odhanayo kuwaas ka shaqeynaya marka way qodobkii noo dambeeya waxa weeye marka keep up to date with cryptocurrency inaad mataqaana la socoto xogaha u dambeeya ama update ku dambeeyay ama warar ku dambeeyay halka wax marayaan inaad mataqaana la socoto marka koowaad waxa sameynaysaa flow reliable news sources ilaha laga heli karo wararka oo kala soonaan karo waana flow garayso
cryptocurrency news websites waxyaabaha dee wararka ama websiteyada laga helo wararka laga helay sida waxaa kamid ah Coindesk, Cointelegraph and Decrypt. waxyaabahaas kamid ah provide the daily updates maalin walba inaad eegto aad la socoto isbedelada dhacaya waxay leeyihiin waxa la wado mataqaana mar walbana cryptocurrency wararka ayaa saameyn ku yeesha iyo dowladaha waxyaabahaas saameyn ku yeesha marka doonaysa la socoto oo aad war ku dambeysay aad maaragtay ogaato waanaad kuwan markaa aad la socoto mid kamid ah ama dhowr xabo waanaad maaragtay follow garayso kabacdina aad kala socoto use bal kulay aggregator sites ka soo ururiya ilaha يعني goobaha wax laga helo kasoo ururiya sida crypto panic for consolidating view news inaad macna war sugan aad hesho waanaad website soo ururiya xogta meel badan ka keena waana mataqaana aad ku xidhanta way mainstream financial news platforms like Bloomberg, Reuters, CNBC also cover major cryptocurrency developments. Kono kale iyo soo kale raacdo way financial news kan ka yagan way waxa sidoo kale labaad use social media waa biggest platforms aad kala socon karto cryptocurrency wararkeeda sida Twitter ama X loo yaqaan follow influential figures like Elon Musk, Vitalik Buterin, Ethereum founder way markaasna Binance CEO Chambex show waxaan arkaa noocaas waana macnaha la socoto waayo wararka iyo mataqaana iyo cryptocurrency iyaga saameeya ku leh oo waxyaabaha ay mataqaana lacagay ku daraan lacagay soo iibsadaan marka arkaan iyaga la socoto waa qasab oo aad ku xiran tahay oo mataqaana aad follow gareysay Twitter-kooga iyo meelaha kale aad kaligaas soo kale follow hashtags like Bitcoin, Ethereum waxay noocaas ku leeyihiin hashtagyada la soco waa Reddit soo kale waa la socoto subscribe like the cryptocurrency Bitcoin, Ethereum are vibrant community for the discussion kuwa marka hadda waan iyagana Reddit-kaasna soo kale waan raacdo Telegram baa kamid ah iyo Discord koro kale marka social media raaci kartana ilaa saddexdan ayaa ugu caansan iyaga ugu waaweyn waad ku xidhnaan karto maaragtay aad kala socon karto wararka way kiin u dambeeya marka wuxuu noqonayaa watch market data analysis platformyada maaragtay suuqa inta badan aad ama indheeya datada iyo waliba waxyaabaha ka dhici kara cryptocurrency kuwaas ugu weyn yahay sida CoinMarketCap iyo CoinGecko ay ugu yihiin to track on coin prices, market trends and project updates. kuwaas inta badan maaragtay aad raaci kartaa la socon kartaa si aad la socoto isbedel ku dambeeyay ee suuqa cryptocurrency marka habeeyal hadda si yaro dulmaran waxaan u sharaxay laakiin hal maaragtay slide oo kaliya qaadanaya saacad haddii si qoto dheer loo galo marka casharada waan xiriirin doonaa maalinba waxbaan ka soo hadli doonaa insha Allah stay tuned